Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum. Kulanti habboon daawada lahaantiinba waxaad ku soo dhawaataan qaybtii 11aad ee taxanaheennii Irbadii Eelka Reebtay oo uu qoray Qoraa Cabdilaahi Saalax Axmed. Qaybtanna waxay inoogu bilaabmaysaa sidan. Waan faraxsanahay. Anuu dhex mushaaxaya muuqaalada qurxoon, asxaabtana waqti la qaadanaya ayaan ku baraarugay. Macallinkii aan xiisadiisa wax yar ka soo baxnay oo meel aan dhowr tallaabo iga durugsanayn soo socda uuna soo gaadhay bariido kadibna intuu ii soo eegay igu yidhi, fadlan xafiiska ii soo raac. Waan sara kacay soona dabagalay ilaa aan soo gaadhay xafiiskiisii. Soo fadhiiso halkan ayuu yidhi. Mahadcelin kadibna sharaxaad kooban ayuu ii galay isagoo iga bilaabay, magacaygu waa Mahdi, waxaan ka dhigaa meeshan luuqadaha, waxaan kaloo qaabilsanahay isku xidhka ardayda iyo la socodsiinta waxa ka soo kordha ururka gacanta ku haya. Sidaa darteed arday walba oo meeshan jooga xil gaar ah baa iga saaran, xaqna wuxuu u leeyahay inuu ogaado kana qayb qaato isbeddelka meesha ka dhacaya. Adna qaybtaada waad qaadan doontaa ayuu igu soo gabagabeeyey isagoo dhoolla caddayn wejigiisa ku bilaaya. Intaa kadib shuruucda meesha oo daabacan ayuu isoo siiyey. Warqadna xogahaygii aan hore ugu sheegay iyo kuwii habo ay hore uga waraysteenba wuu ku buuxiyey. Waan uga mahadnaqay warbixinta anigoo u sii jahaysan dhankii aan ka soo galay. Asxaabtii ayaan ku noqday, bushaaro ayaan wejigeeda ka dareemay inay iga rabto waxaan la soo kulmay. Waan isa soo raacnay. Intaan jidka soo soconnay waxaan uga sheekeeyey sidii wax u dhaceen. Waa sax bay tidhi, qof kasta oo ku cusub sidaasaa loogu soo dhoweeyaa, macluumaadkana loola socodsiiyaa. Way sii waday ammaanta macallinkana ku dheeraatay. Waa macallinka meesha nagu hayay intii aan joognay. Rajo weyn ayuuna geliyey runtii. Mid kastoo naga mid ahna ahmiyadda uu leeyahay ayuu dareensiiyaa. Waxaa la doortaa cidda hogaaminaysa sanadka soo socda ururka ardayda halkan joogta. Gacan weyn uu siiyaa qofka xilkaa qabta, ayay tidhi. Qolkaygii ayaan gaadhnay, duhurkiina qorraxda kaga soo dhuumannay. Casarkii ayay bushaare ii keentay dharka kubadda lagu ciyaaro. Runtii waan la yaabanaa waxanay ku kacayso. Waan ku diiday markii hore oo hadda miyaan yeelaa? Meel laga maraba ma garanayn. Waxaan isku dayay inaan ku qanciyo inaan daawanayo oo keliya oo galbaha kalena la ciyaari doono. Igamay dhegaysanse way igu dirqisay. Aakhirkiina dharkii ayaan soo qaatay. Galabtaana garoon hablaha u gaar ah ayaan kubadda gacanta isku soo eryanay. Fiidkii annagoo gataati dhac ah ayaan qolkaygii nimid. Casho yar oo aan diyaariyeyna wada cunnay. Kadib mid walba sariirteedii isku tuurtay. Buucyo badan baa tegey. Waqtigu uu iskuraya farxadda badankeediina soo laabatay. Dad isjecel kolkaad ku dhex nooshahay naxariis baa ku saaqaysa, neeco udgoonna waad nuugaysaa. Xiisado badan ayaan qaadannay. Macallimiintayaduna waxay isku dayeen inay dhinac kasta oo nolosha ah wax naga tusaan. Waa naloo hagar baxayey. Wax kastoo aan u baahannona haye in la odhanayo ayaan sii ogayn. Dhowrkii toddobaadba waxaa mar soo booqda xarunta mas-uuliyiin ka tirsan ururka meeshan gacanta ku haya. Dhowaan in bulsho badanina sugayso ayay noo sheegaan. Mid maalin khudbad noo jeediyey waxaan hadalkiisii ka xasuustaa. Sidaad ogtihiin, dadka inta xanuunka la heshiisay waxa ka badan inta cadowga ka dhigatay. Inta bulshada ku dhex jirta ee aan sheegan in ay la nool yihiinna tiro ma leh. Takooridda saayidka ah iyo dayacaadda dhanka bulshada idinkaga timi waata keentay in halkan laydinku xareeyo. Ee bulshooyinka kale sidan ma aha. Mas-uuliyad baa idin saaran maadaama wax laydin baray. Qoysas badan oo xanuunkan la nool baa idin sugaya. Carruuro darbi jiif ah oo waalidiintoodii xanuunkan u dhinteen ayaa idin baahan. Waxaas oo dhan iyo wax badanba diyaar inaad u ahaataan ayaa laydinka baahan yahay. Berri ka maalin intiina u diyaarka ahi meeshan waad ka bixi doontaan. Badhkiinna macallimiin bay halkan iyo meelo kaleba ka noqon doonaan. Qaar kalena meelo kale ayay nolol kale ka abuuran doonaan. Wax badan diyaar u ahaada, dadaalkana ogsoonaada. Waxaa noo raacayay waannu mar kasta helaynay daawooyinka hoosu dhiga taranka fayraska. Sidii dad caadi ayaan u noolayn, wax u baranaynay, nafahayagana u maamulaynay. Isku filnaanshiyo inaan gaadhno saaxiibna la noqonno xanuunka ayaa naloo tababaray. Waqti badanna la geliyey. Tababaro dheeraada baanu helnay iyo jaanis waxbarasho oo fiican. Bushaaro oo ah qofka aan odhan karayo ololaha rajo soo celintayda ayay doorka weyn ku leedahay ayaan waqtiga badankiisa wada qaadanaa. Yaraantaydii keligay baan ahaa, lamaan dhalan walaalo aan weheshado, wada ciyaarno,
waxna wada qaybsanno sida carruuraha kale. Maantase kelmadaha inaan ku tawaawaco dembi ayaan u arkaa. Waxay igu garab istaagtay wax walba oo aan u baahnaa markii aan ugu tabarta darnaa. Si gaar ah ayaan maalin isu xal waraysanay, waayahaygii nololeedna ayaan uga soo warramay iyo sida aadka u fudud ee aan xanuunka ku qaaday. In badan bay ilmada ila jiibisay, qosonna iigu beddeshay oo tidhi ayaamihii ku dhaafay yay kaa mashquulin kuwan qurxoon ee aad ku nooshahay. Waa qof karti iyo adayg u dhalatay runtii. Xanuunka siday ku qaaday ayaan mar weydiiyey, wejigeedii ayaan ka arkay murugada hadhaysay. Waan ka maagay inaan xusuuso dib u geliyo, warwar hor lehna horseed ugu noqdo. Intaasi kadib maxaa dhacay? La socdaawada qaybteena xigta. Qaybteenan maanta waxaanaynu ku jirnaa runtii iyo gabagabadii sheekadeena.